burburka ka muuqda wadadan waa fursadda keliya ee ay ku sii noolaan karaan carruurtan sida ay u arkayaan ama ay siinayaan caqliyadoodan curdunka ah. waa 15 ilmood oo ay da'aadoodu u dhaxaysa qiyaas ahaan 13 ilaa 5 jir. gaadiidka kala duwan ee sida joogtada u mara halkan ayay ka caawiyaan inay helaan marin wanaagsan iyagoo adeegsanaya badeelo iyo agab kale oo ay ku soo guraan carrada ay ku shubayaan laamiga meelaha uu ka jajaban yahay, balse iyaga inta badan cidina kuma caawiso hadafkooda nolosha sidii ay uga gungaari lahaayeen, oo waxay halis ugu jiraan in taayirada baabuurta ay dul maraan. موعي بس حاجة شغلانة إيرا ولا مكسبنا بكوكي أول سيارة موتيلي يوضع بابويلي أو سينا. أكيد بنتي ما أسكسر على معاني هذا كرستان مشان صاحبتي بالأرنتاس كأول شيء أرنتاس عشان كرسنا وعند أغلبتي عشان كرسنا وعشران عمينا بحنا وسوسوعنا أدنى شكسنا حافظنا أسكتنا. والله ugu daada yar dhalinyaradan ama caruurtan yaryarka ah saaxiibada ah ee wadadan xaaqa isku xaafadana ah magacaada حسن soo jeesa xasanow ay xaafadada degantiin معاني di fogeen ma ka imaataan دريدش ha hooyo aba wabo حافظ maxaa dhacay hooyo iyo aabe dugsi iyo maxay ku geemayeen xaafadda maxaa u joogaysaa abo عالم شقيق haye hooyana ما lacag adi maalintii meeqa heshaa meeshaan ka heshaa كنتم 50 yaa siisaa marka. waa carruur ay dhaleen waalidiin danyar ah oo degan kaamam ku yaala duleedka Muqdisho. waxay halkan yimaadaan subax walba waxayna ka carraabaan casar liiqa. daruufaha aysan xamili karin ee ay maalin kasta ku shaqaynayaan carruurtan ayaa baray habnololeed ay ku maareeyaan naftooda. marka ay qaarkood shaqaynayaan kuwa kale ayaa ku mashquulsan karinta raashin lagu soo iibiyey shilimaadka yaryar ee ay dadka naxariisanaya dhulka ugu tuuraan. waxa ay samaysteen meel ay cuntada ku karsadaan deetana ay ku cunaan halkaas oo ay ku soo diyaarsadeen alaabo kala duwan. شغلنا واحد إذا سوقنا بديالك بوحنا باركم ومسك الموضوعكم إلا وحا ونسيا قادمين قبر كيسان عانا ونموذا سواعدي ما ناس دا ساوكل حقا تقنا اللحصة مكلاتي مقضا كرسينا واسمعنا ساسا دلاتي حياة فرصة وينا ساسا دلاتي من العشاء ديارسينا. dareewallada ayaa qaarkood aaminsan in howl adag oo in lagu garab istaago mudan tahay ay hayaan carruurtan, hase ahaatee ay ka sii fiicnaan lahayd in lagu garab istaago sidii ay u dhisi lahaayeen mustaqbalkooda. waxay naga saacidaan aan dam wataaleena ay gaadidley waxay naga saacidaan wadada dhismaheeda meelaha goodka iyo meelaha dhibaatada aan kala kulmayno goodka ay noo carab buuxshaan. waxa aan siinaa 1,000 iyo 2,000 waxaan siinaa wax ka badan ma siino. intaasaan ka caawinaa waxaana u sheegaya ilmaha in dawladdu gacan qabato waxay u baahan yihiin mustaqbal. waxay ku fiican yihiin wadooyinka si u nidaamayaan waa kuwa dalkooda dhisayaan oo dalkooda horumar gaarsiiyayaan. tan kale naga saacideynaya anaga mootaaleyahaan wadooyinka qaabka loo dhiso iyo carab buuxiska meelaha goodka aan ku karkashanka oo dhibaatada nagu jiray ama baawur badan meesha ku gadoontay meeshaan wasi aan baawur badan ku gadoontay marka dhibaatadaas iyo waxaas dadaal badan ku wadaan inay nidaamtaan wadada. maalin walba wadadaas horay waa u maraa soo naqadna waa u maraa. marka waxaan ku maraa maalin walbana caruur yaryar oo da'dooda kii ugu weyn 8 ilaa 10 aan ku qiyaasi karo oo aad u tabaalaysan oo Soomaali ka mid ah. marka caruurtaas waxay taagan yihiin maalin walba wadadaas ay taagan yihiin waxay ku shubaan ciid yaryar waxayna wax iska siiyo baabuureyda maartay iyo mootoleyda wadada isticmaasho ayaa waxay siiyaan kun iyo wax la mid ah siiyaan. inta ugu badan markay siiyaan inta ugu badan oo kala hadana waaba ka tagaan oo macnaha ma hayaan ama u aboodaan isla waqti haadirkaas. marka Soomaali waxaan u sheegi lahaa ama aan ugu baaqi lahaa caruurtaas yaryarka ay idin muuqato oo meeshaan dhooban hadday danqasho jirto oo wax damiir leh Soomaali ay ku dambeeyaan in caruurtaas mustaqbal loo sameeyo ee wax loo qabto. sheekada ciyaalkan ayaa laga baran karaa in mid ka mid ah marxaladaha ugu wanaagsan ee horseeda xalka nolosha uu yahay wadajirku, maadaama uu wadajirku yahay marxalad awood siinaysa inta markaasi wada socota. sheekadan waxay sidoo kale qayb ka tahay kuwa taxana inoo ahaan doona
oo ku saabsan sida ay waayaha adag ee ku geedaameen dadka qaarkood u bareen wadajirka iyo in wax lagu wada qabsadaa ahmiyadda ay leedahay. dhowaan ayay sidan oo kale Shabeelle soo bandhigtay 13 naafo saaxiibo ah kuwaasoo samaystay shuruuc ay ku ilaaliyaan wadajirka ay wax iskugu darsadeen kuna maareeyaan halganka noloshooda adag. Maxamuud Soo Faysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.